gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Waraabe ahna musharax xisbigaas oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka Home Cable ayaa dhaliilay hogaamintii muddadii xilka ay gudoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ee maanta iska casilay xilkaasi isagoo sheegay in muddadaasi uu sameeyay khaladaad badan inta uu joogay Cabdiraxmaanna waddanka dhibaato badan buu keenay koo wax kamida sharci jabinta oo aabo waxa weeye sharci qoraya wakiilkii ka maqnaada 3 session fadhi inuu shir ka maqnaada 3 isku xiga inuu kursigiisa waayo waxa jira intaas oo qof oo taqaal jaamacad soo dhameeyeen oo lacagtiisa qaadan jiray intaas oo baasaboor soo qaadatay ajnabiga bay soo dhiibay oo lacagtooda qaadan jiray sharciga kuma shaqeynay haddana waxa dhacday Cabdiraxmaan markuu baarlamaanka ahaa dambi buu sameeyay oo dhiig ku daatay waxa dhacday markii laga xiray habeenkii hore ka xiray baarlamaanka furaha ka qaad habeenkii 12 habeenimo salaadiintu inta ay yeedeen ay guriga Sultan Ismaaciil fadhiyeen ayna war furuu soo doon waayay barkaale Faysal aanu tagay ana la hadlay furiyo doontay waxaan ku niri furaa marka doontii subaxdii dadka waxay hor taagan yihiin meeshii tusina furi soo qaaday dadkii u nafiseen shacbi muu yeerin dadku muu sheegin wuxuu damcay xoog ku galo baarlamaankii waqti dhimasho dhacay labada qof ku dhinteen gacan buu ka geystay inuu guurteeda kordhiyo gacan buu ka geystay inuu baarlamaanka la kordhiyo markii wuxuu la saaxiibay kulmiye markii kulmiye soo baxayna ways heshiiyeen in dalka fawdada galo oo institution iska sii jiraan guurti iska jirto maantana dee waxba kaga mutagay baarlamaanku burburay ama burbursan weeye intaasoo mooshin baa baxay baarlamaanka mooshin qura oo aynu arkinay gudoomiyaha baarlamaanku inuu jecel inuu mooshinkaas socdo iyo mooshin aan arkin inuu diidan yahay inuu socdo ma jiro marka diidmeed waa indifference haddana waxa maareeris ka dhacaya dantiisa maaha wixii kale waxba kama gelin tiisa waa ka deeferka dadku dhacaya marka la yiraahdo noo dhib microphone waa talaabo wanaagsan laakiin it's already late 12 sanadood qof sharci ku fadhiyay markuu madaxweynaha haduu noqdo wuxuu fadhiisan xabaddu la dhici doona hadii la yiraahdo doorashadii telefishinka Home Cable ayaa gudoomiyaha weydiiyay balin dhaliishiisa loo fasiran karo inay daba socoto muranadii hore u dhaxmaray isaga iyo gudoomiye Cirro xilliga ay isku hayeen xisbiga u cud anoo imika saaxiib baan nahay marka aragno marka qoran qosolaawe labada qosolaawe waqti laakiin waxaan sheegay in fact anuu dadka waxyaalo ma aqaano arsigorsi ma aqaano ficilta ma aqaano laba mid ayaan ogeyn injineer Faysal Cali Waraabe sidoo kale waxa la weydiiyay rajada uu ka qabo balin shir gudoonka cusub iyo guud ahaanba golahaasi ay soo dhameystirayaan xeerarka muhiimka ah ee harsan inta ka hadhay muddo xiloodkooda lamaha inay dabad laga riixay muujaane ku qasab ay tahay marka doorashada hortay in la sameeyo waa inay marka la qabtaa wixii kala day dawladda insha Allah taala baarlamaanka dambe ayaa noqon doona Xasan Galayd Home Cable TV Hargeysa.